السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaynu dib u xasuusan doonaa ninkii u horreeyay ee cadawgeena gacanta inoo galiya markii dagaalkii 7-7 ka dhamaaday gooshii Soomaaliya hanatayna dib ka wiiqatay Etoobiyana gaaladii u habar wacatay ciidankii Soomaaliyeedna araxda ka jabay sanad kadib 9kii bishii Afraad 1978 waxaa inqilaab isku dayay koox uu madax u ahaa Korneyl Maxamuud Sheekh Cismaan oo cirra ku magac dheeraa wuuna dhicisoobay inqilaabkaasi markii nimankii la qabqabtay qaarna la laayay niman uu hor socday Cabdilaahi Yuusuf Axmed waxay hub u doonteen Mingiste taasina waxay farxad iyo rayn u ahayd cadawga Soomaaliya ee Ethiopia waayo wuxuu helay wada fudud oo Soomaali ku gumaadi karo wuxuu helay faraskii oo u fuuli lahaa wuxuu helay warankii uu ka taagi lahaa hilifahana ugu qaadi lahaa waxay heleen fursad ay raadinayeen qarniyo waxay markiiba calanka u taageen ciidan dubka iyo deerka Soomaali uga eeg maanka iyo maskaxda Mingistana ku shaqeynaya magacana looga dhigay SSDF hubkii ay Soomaali ku gumaadi lahaayeen waa lagu raray Luulyo 1982 waxay qabsadeen degmooyinka Balanbale iyo Goldogob hooyooyin iyo ubadkoodiina naftoodii ayay ka amaaneysteen xabaalahana way ku aaseen isla markiiba Ethiopia waxay adeegsatay saxaafadeedii afka dheereed oo ah hub aan dhayal ahayn lagana sii daayay raadiyo Addis Ababa in jabhadii SSDF ay la wareegtay degmooyin waaweyn ciidankii Siyaad Barrena cagta la mariyay warka beentana waxa looga gol lahaa in dadka la isku foorariyo Siyaad Barrena uu iyaga gumaado waa si ay u helaan dad badan oo u adeega Soomaalina madaxa isugu wada geliyaan awoodeedana ay Soomaaliyadu gacmaheeda ku dumiso wayna dhacday taasi oo kaaga warrami maayo urur wal oo raba xil waxa uu cararaa Mingistana hub ayaa uu ku soo daqiiqa dadkiisana si ugu gumaado Yuusuf Cabdilaahi wuxuu Soomaali u horseeday burbur iyo bayhoof wuxuu sabab u yahay qof kasta oo Soomaali ah oo dhinta wuxuu ilaa qiyaamaha dambi ku lahaan doonaa fidno kasta oo ka dhacda Soomaali gudaheeda wuxuu ummadda Islaamka u jabiyay cadawgeeda Yuhuudda iyo Kiristaanka ee Ethiopia waa qof aan marnaba la ilaawi doonin isaga iyo intii Ethiopia u yaacday si ay u helaan xil loona soo dhiibay hub si ay u burburiyaan dadkooda iyo dalkoodaba Ethiopia waa cadawga Soomaaliya mid walba qol gaar ah ku xidhay waa sadusha dhamaantood ka maamusha ciidankeeduna xasuuqa maalin walba gudaha dalka Soomaaliya ka geysto waata al-shabaab hubka siisa si ay u rogto Soomaali ciidankoodana u cunsiiso ciidamada AMISOM looma keenin ay Soomaaliya ilaaliyaan laakiin waxa loo keenay ay u joogan dadka Soomaali si ay u dhameyn lahaayeen ay dhamaantood u gumaadi lahaayeen hoosna way u laayaan oo inta aan la og yahay inay dileen waxa ka badan inta aan la ogeyn al-shabaabna iyaga ayaaba wada shaqeeya oo waa dhamaantood waa dad ay adeegsato Ethiopia daawade laxdukani abaar ma oge ma kula tahay Ethiopiyadii markii hore Soomaaliya dumisay maanta inay dhisayso ma og tahay inay wacad ku martay goor aan sidaa u sii fogeen inay Soomaali geeska Afrika ka tirtiri doonto iyada iyo wixii islaam sheegtaba daawade laguma leynayo Soomaalinimo kaliya ee waxa cadownimadu ka socotaa waa islaamnimadaada waana dagaalka u dhaxeeya xaq iyo baadil waligii wuu jiray waanu jiri doonaa daawade dharbaaxadu intay ka fog tahay waa la iska eegaa balse haddii ay kugu dhacdo jawaabteeda ayaa la daydayaa maxaa kaaga diyaara Soomaali